بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى وحين كلمات سكورن دونا دور الشباب في الحياة، أما ninka dhallinyarada ah iyo nolosha dowrka uu ku leeyahay. dhallinyaranimadu waa waqti cumriga ka mid ah. qofka bini aadamkiina cimrigiisu waa ra'samaalka xaqiiqiga uu leeyahay. hantida dhabta aad leedahay waa waqtiga aad nooshay. waqtigaas aad ugu tijaarayso ama uga faa'iidaysatid ama wax ugu qabsatid ayuunbaa noloshaada oo dhammee intaa tahay. aakhirana waxa ku anfaca waa intaa, adduunkana waxa ku anfaca waa intaa. idan cimrigu duuduub ahaan isagoo ah qofka noolba noloshiisii ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi xadiidku imaamu tirmidi soo wariyay ee xasanun saxiixa ku tilmaamay, sheekh ilalbaanina uu ku taxsiininayo fi ljaamic asagiir. wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh: laa tazuulu qadama cabd yowma alqiyaamati xataa yus'ala can cumri fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah wa can maalihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wamaada camila fima calim. nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, qiyaamaha qofku mowqifka su-aasha iyo meesha wax la weydiinaya kama dhaqaaqayo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su-aalood mooyaane. su-aalaha la weydiinayo su-aasha koowaad waxa weeyaan, cimrigii alle ku siiyey ee aad dunida ku soo noolayd maxaad ku qabsatay? cimrigii maxaad ku qabsatay? cimrigu ama waktiga uu alle subxaanahu wa tacaala jaaniska kuu siiyey inaad noolaataa waa wakti runtii loo baahnaa in laga faa'iideeyo. waa wakti qofku hadduu khasaareeyo aakhiro uu in badan calacali doono. ilahay wuxuu tilmaamayaa gaaladu inay aakhiro odhan doonaan: rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal. ilaahayow naarta naga saar, wixii aanu samayn jirnay waxaan ahayn aanu soo samaynay. maxay raadacaynayaan? waxay raadacaynayaan cumri cusub in la siiyo, jaanis dambe in la siiyo, waqti dambe in la siiyo. kan maanta aan qiimahaba ku fadhinina dadka intiisa badan hadal iyo sheeko kaga lumay, cimrigan aan waxbaba u tirsisnayn, ayaa aakhiro wuxuu yahay waxa la tamaninaya ay ku calacalayaan: ilaahayow inama na sii, inoogu dar. jawaabtaasina ilaahay wuxuu kaga jawaabayaa nimankaa su-aashooda iyo warsigoodana: awalam nucamirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wajaa'akum nnadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir. awalam nucamirkum maa yatadakkaru fiihi man tadakkar. ilaahay wuxuu leeyahy oo miyaanan cimri idin siinin in qof waantooba uu ku waantoobo? sawtii cimriga laydin siiyey baa la leeyahy subxaana wa tacaala. oo cid digaysaana idiin timi, iska dhadhamiya naarta baa la ydhaahdaa kuwii gaboodfalee dulmi sameeyey. aakhiro ciduu hiilisa ma lehe. waxaa aad u cajiiba bini aadamku maanta hantidii uu haystay siduu haafilka uga yahy ee uu raadacaynaya hanti aanu haysanin. hantidii uu haystee dhabta ahayd ee cimriga ahayd haafil buu ka yahy. wax kalena wuu tamaninayaa, wax kalena wuu raadacaynaya. wixii alla siiyeyna uma muuqdaan. inuu cimrigu ku baxo hurdo, cayaar, cunis, intaa uu ku dhammaadaa waa wax aad u liita. idan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay aakhiro waxaa la isweydiinayaa 4 su-aalood ama dhowr su-aalood. midi waa cumrigii iyo wixii aad ku qabatay, midina waa dhallinyaronimadaadii
iyo wixii aad ku qabatay midna waa xoolaha iyo meeshaad ka keentay ee aad ka xoogsatay ma xalaal bay ahayd ma xaaraan bay ahayd iyo markii dambe ay ku soo gashay xaggaad ku bixisay ma xalaal bay ahayd ma xaaraan bay ahayd iyo wixii alla ku baray maxaad ku qabatay garaad iyo caqli iyo cilmi iyo aqoon wixii alla ku siiyey maxaad ku samaysay su-aalahan waxaynu arkaynaa innagoo nidhi cimriga waa lagu weydiinayaa haddana qayb cimriga ka mida su-aal gaara wadata waa can shabaabihi fima ablaa iyadoo cimriga duuduub ahaan lagu weydiiyey intii aada noolayd waxaad qabatay ayaa haddana waxaa lagu weydiinayaa su-aal kale oo cimriga qayb ka mida ah oo iyadu su-aal gaara sii leh waa wakhtiga dhallinyaronimada loo yaqaano shabaabnimada wakhtiga loo yaqaano wakhtiga dhallinyaradu waa wakhti laba liidasho u dhaxeeya laba dacfi u dhaxeeya allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba yakhluqu maa yashaa wahuwa alcaliimu alqadiir ilahay wuxuu tilmaamaya inuu bini aadamka abuuray marxalo uu daciifiya inaynu soo maray uma jacala min bacdi dacfin quwa dacfiga dabadii in xoog la siiyey xoogga dabadii liidasho iyo ciro inuu qaadi doono haddana idan marxalo weeyaan qofku uu ugu firfircoon yahay uu jidhkiisu koritaan ku jiro caqligiisu koris ku jiro caafimaadkiisu inta badan fiican yahay wakhtigiisa inta badan uu keligii leeyahay mashaaqisha dunya ay ku yar tahay waa wakhti runtii mudan in badan la isweydiiyo waa wakhtiga uu qofku xoogaystay walaa taqrabuu maala alyatiim ila bilatii hiya axsan xataa yabluga ashuddah ilaa intuu ka xoogaysanaya agoonta waxooda ha loo daayaa la yidhi waxaan leenahay dhallinyaronimadu waa wakhti loo ooyo waa wakhtigu ninkii gabyayay lahaa fayaa layta shabaaba yacuudu yowman faahbirhu bima facala almashiibu ilaw maa dhallinyaro mar uun soo noqoto ciro iyo da-i waxay badday aan uga warramay waa marxalad qofka bini aadamkii uu u baahan yahay inuu si gaara uga faa'iidaysto fatrada dhallinyaronimadu waa fatro wada nashaad iyo waxqabad ah ninka dhallinyaradii hadduu wax ku qanco kullu haalin wa nafiis inuu bixiyaa buu ogol yahay xagga dambe inta badan ma eego ninku markuu gaboobo mahaaligta iyo waxyaabaha dhibta le waa ka soo cabsadaa buu nebigu tilmaamaya carruurtu waa majbana mabkhala waa wax qofka baqogeliya carruurtu oo bukhli geliya markaad carruur iyo xaasas iyo islaamo iyo wax ka dambeeyaan talow haddaad adigu dhimato maxay xaalkoodu noqon haddaad intan yarad hayse ka bixiso maxay iyagu noqon kuwa dambuu ka fekerayaa inta badan noloshiisa cid kale la wadaagta laakiin markuu dhallinyaro yahay inta badan noloshiisa isagaa iska leh cid kale oo la wadaagtaa inta ugu badan le ma jirto qofku markuu da' gaadho xidhiidhadiisaa tiro bata oday buu noqdaa dadku la talinayo dadku u talinayo dadka ku xidhiidhadiisaa tiro bata wakhtigiisa inta ugu badan le waxaa laga yaabaa in dad kale qaato laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay wakhtigiisa o dhan isagaa iska leh cidna tale iyo warsi kale uguma timaado wakhtigiisa oo dhan isaga ayaa iska leh waxa uu ku isticmaalaya kastaba ha jire ninku markuu dhallinyarada yahay wuxuu u baahan yahay xooggaasi inuu in badan ka faa'iideeyo oo uu dhowr shayba kaga faa'iideeyo inuu garto hadaf ilxayaa maxaad u nooshahay maxaad u nooshay maxaad nolosha u joogtaa
waxaa laga yaabaa cimriga dadku in badan qaybo ka mid ah inay tartiibiyaan wixii ay ku qaban lahaayeen laakiin ka duuduub ahaan waxay qaban lahaayeen inay ilaabaan. waxaa laga yaabaa inay kuu qorshaysan tahay iskuol dhigo ka bax, secondary ka bax, jaamacad gal ka bax, halkaa ka soo bood, qalin jabi, shaqo fiican raadi. shaqo fiican in la helo waxaad aqbashay inaad u soo gasho maxay 12 sano iskuula, dhowr sano jaamacada, waxaasoo dhan waxaad u soo socotaa shaqo fiican inaad hesho. programmed baatoo intaasi way kugu qafilan tahay, laakiin waxaa ka weyn cimrigaagoo dhan isku duuduubo hadafkaad ka leedahay muxuu yihi. waxaa laga yaabaa caawa markaad seexato aroorta wixii aad qaban lahayd inuu kuu qorshaysan yahay. idan qorshayaasoo dhammi waa qorshayaal kooban oo tirsan, laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan noloshaadoo dhan maxaa kaaga qorsho ah? fatrada aada nooshay inaad maxay qabataabaa kaaga qorsho ah? aakhiro inaad maxay alla la hor tagtaabaa kaaga qorsho ah? wakhtigu hadduu qofka ka lumo waa dhib. ninku intuu dhallinyarada yahay buu wakhtigiisii rasmigaa haystaa inuu wax badan ka faa'iideeyo, walidalik bay saxaabadu taa dareemayeen. waxaa kugu filan xadiidka صaxiixa ee cabdillaahi ibnu camar ibnu caas ayaa wuxuu leeyahay, xadiidka ibnu maaja baa warinaya, sheekh ilalbanina waa tasxiixinaya, saxiixadu ku soo arooriyey. cabdillaahi ibnu camar ibnu caas baa wuxuu leeyahay, jamactu alqur'aana faqara'tuhu kullahu fii leyla. qur'aankao dhan baan xifdiyey buu yidhi, dabeetana cimriga ka faa'iiday buu isleeyahay, habeen quran ku akhriyay buu yidhi. dabeetana nebigaa warkii maqlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. wuxuu nebigu ku yidhi, inii khashiitu an yatuula calayka azamaanu waantamal. cabdillaah waxaan kaaga baqayaa buu nebigu ku yidhi in cimriguu dheeraado oo aad hadhow daashid. yani nebigu wuxuu tilmaamayaa camalka kala joogteeya inuu ugu fiican yahay, kala joogteeya inuu ugu fiican yahay. deetana wuxuu leeyahy inaad habeen walba sidan u wadi weydaabaan ka baqayaa hadhow aad hore u daasho. markaasuu wuxuu nebigu ku yidhi, faqra'hu fii shahr, bil ku akhri qur-aanka, bishiiba mar dhammee. saxaabigani muxuu ku yidhi marka, dacni astamticu min quwatii wa shabaabi. ilaahay rasuulkiisiiyo buu yidhi, idaah dhallinyaronimada iyo xooggaan ka faa'iidaystay. da' baa soo socotay, intanaan dhallinyaro iyo xoog ahay, intanaan aakhiro shawd waynu jaro, aan wax badan qabsado, aan ka faa'iidaystay ha laydaaya buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. markuu arkay siduu ugu adagiyo nebigu wuxuu ku yidhi, faqra'hu fii 10, haddaba 10 ku akhri, 10kii maalmoodba mar dhamme. haddana su-aashii buu nebigu ku soo celiyay isagoo leh, dacnii astamtic min quwatii wa shabaabi. ilaahay rasuulkiisiiyo idaa aan xooggayga iyo dhallinyaronimadayda ku raaxaysta buu leey. istimtaac inuu ninkani cibaadaysto oo intanuu dhallinyaro yahay xooggiisa isticmaalo, oo caqli iyo awood wuxuu leeyahy o dhan uu isticmaalo, oo uu aakhiradiisa dhiso ayuu ku tala jiraa. inaan wakhtigu ka beerdaroobin amase ka lumin buu ilaalinaya. saasi daraaddeed buu wuxuu leeyahy, waxaad idaa ilaahay rasuulkiisiiyow aan istimtaac aan ku raaxaysto dhallinyaronimadayda iyo xooggayga. markaasuu nebigu ku yidhi, faqra'hu fii 10, waar haddaba 10 ku akhri. waa ku soo celiyay. haddana wuxuu leeyahay, dacni astamticu min quwatii wa shabaabi. ilaahay rasuulkiisiiyo idaah aan weli xooggayga iyo dhallinyaronimadayda ka faa'iidaystay iidaa buu leeyahy. markaasuu nebigu suu u waday, nebigu wuxuu gaadhsiiyey inaanu dhaafin maxay wakhti inta ka yar, inaanu ka badinin waxaa la faray. fii 7 baa la yidhi, 7 ku akhri. markaasuu haddana halkii ka bilaabay, dacnii astamtic min quwatii. maxaa meesha ka muuqda marka? waxaa ka muuqda yacni saxaabadu sida ay wakhtigooda uga fakerayeen, sida uu u dareemayay dhallinyaronimadan wakhtigeeda inuu ka faa'iideeyo, sida uu u dareemayay inuu kaga faa'iideeyo aakhiradiisa inuu dhiso,
sida uu dareemayay cimriga dhallinyaronimadu inay waqti ugu fiican yahay oo aanu ka lumin. war dhallinyaronimada waxaad ku garan kartaa siday u fiican tahay. ahlu jannaha la yidhi waa dhallinyaronimo. soo ahlu jannaha lama rabin inay raaxaystaan raaxo kama dambaysa. waxa uu nebigu tilmaamaya in ilaahay ku odhanayo ina lakum an tashubbuu falaa tahramuu. nimcooyinka la siiyey marka la tilmaamaya waxaa la leeyahay waxa alla idin siiyey inaad dhallinyaro ahaataan oo idan weligiin gaboominba waa la leeyahy subxaana wa tacaala. idan dhallinyaronimadu waa noloshaba inta ugu macaan, waa nolosha inta ugu xoog badan, waa nolosha inta ugu tayada badan leh, waa nolosha inta ugu waxqabadka badan leh. sida daraaddeed baa ahlu jannaa la yidhi dhallinyaray ahaanayaan. ahlu jannuhu odayaal jannada joogi maayaan iyo da' waaweynitoona. dadka ahlu jannaho oo dhamme waxay wada ahaanayaan dad wada dhallinyaro ah. idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay inuu cimriga ka faa'iideeyo, gaar ahaan wakhtigiisa dhallinyaronimada inuu ka faa'iideeyo. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamayaa dhallinyaro waxtar ah oo dulmi ka hor timi, oo wax kasta oo xumaa diiday, oo geeri iyo wax walba aqbalay. ilahay wuxuu tilmaamayaa maalan qur-aanka khaalidkaa lagaga warramaya kuwa maxay asxaabi ilkahf. ilahay muxuu ku sheegay inahum fitya aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. dhallinyaray ahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. ilaahay rumeeyey annanaanu hanuun u kordhinay. nebi ibraahim dhallinyaruhaa markuu wax jejebinayay asnaamtiiyo waxaan diidayay. qaaluu man facala hada biaalihatina inahu la min alظaalimiin qaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim. waxaanu maqalnay nin dhallinyaro ah oo hadal hayay asnaamtan burburintoodiiyo waxa kan. waxay ahaayeen dhallinyaro kuwii taariikhda dhigay. nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii alla soo diray dhallinyaronimada halkii u dambaysuu joogay 40 jir. waxay culammada qaar yidhaha waa muntahaheeda. laakiin taariikhdan adduun raggii qoray ee mujtamacaadkan duniyeed bedelay saxaabada maxaa u malaynaysaa? markaad saxaabo maqasho inta badan waxaa laga yaabaa caqligaaga inay kusoo degdegto rag waaweyn oo odayaal ahaa oo qaado ahaa oo ummad hogaaminaya oo ka rag waaweyn bay ahaayeen oo dad hogaaminayay, laakiin dhallinyaray ahaayeen marka da' lagu xisaabtamo. abibakar baa u weynaa kooxdii hore islaamtay islaamku uu ku tiirsanaa 37 jir buu ku islaamay. cumar bin alkhadaab asxaabi taariikh waxay yidhaahdaan 26 jir buu ahaa. cuhmaan waxaa lagu tilmaamaa inuu 20 jir ahaa. bilaal iyabaa ugu weynaa baa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo 30 jiray ahaayeen. bilaal iyo cabdiraxmaan ibnu cawf 30 jiray ahaayeen. cali 12 jir buu ahaa saa wada taqaaniin. sacd ibn abi waqaas 17 jir buu ahaa. suhayb arruumi 19 jir buu ahaa. zayd ibnu xaarita 20 jir buu ahaa. abu cubayda bnu ljaraax 27 jir buu ahaa. meelahaasaa lagu tilmaama. ragga badh baa la gaadhsiiyey inay 11 jira ahaayeenba guryahooda lagu shirayey. alarqam ibn abilarqam culamaai taarikh qaar ka midii waxay leeyihin 11 jir buu ahaa berigii gurigiisa lagu shiri jiray. inkastoo riwaayadka uu soo aroorinayo imaam dahabi uu ku tilmaamayo inuu 19 jir meelaha da' ku dhadhow inuu ahaa. calaa kulli xaal taariikhdan islaamiga raggii qoray ee diintan u halgamay ee nolosha wax ka gediyey ee islaamnimada umamka uu ku hagay waxay ahaayeen dhallinyaro. laakiin waxay ahaayeen dhallinyaro garanaya waxay u nool yihiin. waxay ahaayeen dhallinyaro raba inay cimrigooda ka faa'iideeyaan. waxay ahayn dhallinyaro hadaf leh oo raba inay xaqiijiyaan. may ahayn dhallinyaro u nool inay cunaan oo seexdaan oo yidhaahdo xalayna kubad fiican baa socotay xalay oo tiim hebel baa tiim hebel ka badinayay. saakoo dhanna wuu soo hurday. markuu soo toosayna quraac iyo ayaa hooyadiisu saartay iyo surwaalkoo kaaweedaysano intiibuu soo xidhay. cabaar buu suuqa soo marmaro markuu soo sheekeeyeyna uu soo noqdo qaduu cunay. hadhowna dib buu u seexday haddaanu belaba qabin aanu qaad doonanin. markuu soo noqdana noloshiisa oo dhammi sii soco iyo soo soco iyo in cunaabay ku dhammaatay.
laakiin kuwani waxay ahaayeen dhowr iyo 10 jiro rumaysan inay dunida bedelaan dhowr iyo 10 jir hamiga aan rumaysan inuu diin xambaaro dhowr iyo 10 jir inuu dunida xagga kale u dhigo madiino oo dhan yaa furtay Mus'ab ibn Umayr iyo Abdullah ibn Maktum buu nabigu soo diray Mus'ab ibn Umayr inan yar buu ahaa inan yar oo markuu Maka joogay xaraga badnaa oo aad u xaraga badnaa baa la yiraahdaa cudurtu ismarin jiray iyo dharku xidhan jiray laakiin markuu islaamay ilaabay waxa soo dhan ku tala galay inuu nolosha wax ka gadiyo isagoo dhalinyaro abu nabigu u diray inuu Madiina qabto Madiina Mus'ab ibn Umayr baa islaamiyo bedelay ragga taariikhda ku taqaanay Aws iyo Khazraj hogaaminayay Sa'd ibn Ubaada Sa'd ibn Mu'aad waxay ku soo islaameen gacantii maxay Mus'ab ibn Umayr aakhira miisaanka Mus'ab iyagoo ku jiro imanaya ku nabigu laha salawaatullaahi wa salaamu alayhi ihtazza arshu arrahmaan ilaahay arsigiisa u gariiray geeridii ayo Sa'd ibn Mu'aad kuwa geeridooda arshu arrahmaan uu la gariiray dhalinyarada diinta ba ku soo dartay aakhira Sa'd iyo Mu'aad iyo kooxdaas oo dhami iyagoo miisaanka Amaar ku jira bay imanayaan Mus'ab ibn Umayr iyagoo ku jira miisaankiisa ayay imanayaan yani makada islaamku uu ku faafay ee raggaasi soo galeen iyo diinta soo galay Mus'ab ibn Umayr baa furtay Mus'ab kaas ayuu ahaa ninkii Uhud raayadii muslimiinta sidee gacanta markii la gooyay takala ku sidee gacmaha markii la jaray culamaa taariikh ay yiraahdaan caguhu ku hayay ilaa meel walba la gooynay Mus'ab kaas oo ahaa kii markuu dunida ka baxayay markuu shahaada qaatay geeriyooday ninkii xaragada badnaa mara lagu kanfo looma helin mara lagu kanfo looma helin tuusitay baa shahiid buu ahaayoo lagu aasay laakiin waa ku Cabdiraxmaan ibn Awf tilmaamayay waa dambe ayaa Cabdiraxmaan cunno loo soo dhigay laba isugu jirta laba shay inaga qadada imisa la inoo dhigaa 10 shay oo kala nooc salad iyo sharaab iyo hilib iyo khudaar iyo bariis iyo waxa soo dhan Cabdiraxmaan ibn Awf baa laba xabba loo dhigo kala nooc ah markaasuu ooyay baa la yiraahdaa markaasuu wuxuu yidhi tayibaadkaygii baa anaga dunida naloogu soo horumariyay waa laba raashin oo yaroo kala nooca ay wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inaan noqono kuwii dunida loogu horumariyay maxay wanaagoodiiba waxaa naga mida buu leeyahay markaa mid aan wixii uu shaqaystay waxba ka cunina ilaahay dib ugu dhigay Mus'ab ibn Umayr buu markaa ka warramay go'ii la saaray wuxuu leeyahay haddii madaxa laga saarana cagaha qaawismayay haddii cagaha laga saarana madaxa qaawismayay deetan nabigu wuxuu yidhi madaxa ka saara salawaatullaahi wa salaamu calayh inta dambe cagaayona idkhiru saarsaara idkhirku waa iska geed yaroo cawskaasoo kalaa kaa u saara cagaa dambana ku qariya laakiin noloshuu hadaf ka lahaa hadafkiisiina wuu xaqiijiyo wuu u dhintay waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii aan odhan karno مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه مدينة يسوع وحو باهضي إن لغة يهودات عدو برطه سي يهودا من كما هي وحي هشي سيك لقلي أنا ما وحي وراقي سقريان عدو واخرضا مسلم أو كوكل سوية سحاب اللي يراه آدو اللي يراه زيد بن ثابت بالنبي يقول برو زيد بن ثابت إنه هدف كاسي حقيقي علماء تاريخ قارنا waxay leeyeen dhowr iyo 10 casho ayuu ku bartay qaarna waxay dhahaan 20 casho ayuu ku bartay isku daro علماء taariikh waxa la bil ka badan ku bartay ma jiro luqadan inuu islaam u gargaaro luqa yahuudeed u bartay waxaanu ku bartay aqal min shahr 20 casho 20 casho ku bartay waxay hayeen dhalinyaro nabigu markuu tilmaamayay saxaabada ilaa hebel baa waxa idinku fiican hebel Muaad ibn Jabal baa la tilmaamayay inuu yahay ka xalaal iyo xaraam idinku yaqaana Muaad muxuu dhalinyaranimo ku dhintay xataa markii dambe Muaad ibn Jabal nin dhalinyaro abu ahaa waxay saxaabadu ninka dhalinyaradii xataa makhaatirta ma arko Abdullah ibn Mas'ud waa taqaanin saxaabadii iyagoo yar yar islaamay buu kamid yahay waliba wuxuu ahaa nin marka tamartii xooga laga warramayo aad u dhuudhuuban oo
oo lagu qoslo mijihiisa marka la arko maalin bay saxaaba ku qosashay mijihiisa intay arkeen markaasuu nebigu xadiidka waa ku tilmaamayay mijaha dhuudhuuban ee cabdillaahi ibnu mascuud ayaa miisaanka ilaahay agtiisa kaga culus jabal uxud buu ku tilmaamayay cabdillaahiga caynkaasi makhaatirtu uma muuqan iyadoo qurayshi joogto oo kibirkoodii muuqdo oo meel walba faankoodii yaallo ayay saxaaba maalin yidhaha wararta heedhaha yaa maanta tegaya naadiga quraysheed oo qur-aanka dhex akhrinaya waa maka oo ay mustadcafiin yihiin oo laga xoog badan yahay ayaa la yidhi yaa tegaya naadigoodii ma aha yaa meelahan qur-aan ka akhrinaya waa golihii shirki ee ay qurayshi lahayd quraysh oo qofkii islaamee loo sheegay dilaysa ayaa waxay dhallinyaradu isweydiinaysaa war bal yaa u tegaya quraysh oo qur-aan kusoo akhrinaya cabdillahi ibnu mascuud baa yidhi anaa akhrinaya waa u tegey dabeetana qur-aan buu ka dhex akhriyey war wiilkan yaree naadigeeni inugu soo doontay muxuu ahaa baa la yidhi oo inta la qabtaa la tumay cambal iyo cambal baa loo dhigay si aad u xun baa loo tumay yani ninka dhallinyarada ahi waa niman makhaatirta arag bay yidhaahdaan culamaai taarikh markay warramayaan waxay ahaayeen dad humuum xambaarsan isagoo aan hanti haysan xoola haysan waxba haysan laakiin raba waktigiisa inuu ka faa'iideeyo walidalik ayay ahaayeen dhallinyaro xataa qaadat aljuyuush ciidamada raggii hogaaminayay waxaan odhan karnaa ciidamo hogaamintaaya inay ilaahay dartii u dagaalamaan taariikhda waa ku wada daraasaysaan siirada marka la dhigaya waa wada maqashaan in saxaabo dhallinyari ay nebiga soo raacday oo uu yidhi wixii aan qaan gaadhin markaasi ha iga noqda ha hadhaan oo dabeetana nin ka mid ah kuwii aan qaan gaadhin nin ka mid oo dhallinyarada ah ayaa la yidhi hebel isagu waa shiishyahan oo gamuunka hadduu saaro ragga waaweyne halkuu ku dhufto halkuu u dhigo uma dhigaan baa la yidhi soo daaya buu yidhi markaa ninkii shiishyahanka aya isaga la yidhi laabkiiyo qaasada gamuunka halkuu ku fiiqo lama waayo ninkaasi waa nin dee dagaal geli kara baa la yidhi iska soo daaya kii markii la soo daayo midka la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hebelka aad sii daysay haddaanu isgallo anuunbaa dhulka dhigaana nimaan ka xoog badnayba haddii dagaalka loo ogolaaday anna halaysii daaya dagaalka halay ogolaaday legdamaa la yidhi waa la isgalay ninkii shiishyahanka ahaa buu dhulka dhigay labadaba soo daayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan waxay ahayn dad hadaf u nool qof lagaga celinayo goob rag isku hayo oo dagaal ka socdo oo farisiintii quraysh ay joogta oo raggii ugu dagaalyahansana ay joogaan ayuu ninkani rabaa inuu ka dagaal galo waana la celcelinaya waxaa la leeyahay ama maad qaan gaadhin ama inan yar baa tahay ama kaas baa lagu celcelinaya isna wuxuu rabaa xataa mayaadiin iljihaad inuu galo isagoo maxay dhallinyaro ah waxay ahayn dhallinyaradaas khaybar markii dhowr casho la isku dayay dagaalkii hore loo furan kari waayey ee uu nabigu yidhi maanta waxaan raayada u dhiibi doonaa aroorta mid ilaahayna jecelya isna ilaah iyo rasuulkiisaba jecel alla iyo rasuulkiisuna jecel yihin dabeetana cali buu yidhi miya cali nin dhallinyaro ah buu ahaa nin dhallinyaro ah ayuu ahaa cali oo bakooraysan baa loo keena oo indhaha baan waxba ka arkaynin deetana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruqya intugu akhriyay oo indhaa ugu tufay ayaa ilaahay ka fayday wixii hayay saasuu ku dagaalgelayay waxaan leenahay hadday dagaaltay iyo qiyaadatu juyuush hadday tay dhallinyaray ahaayeen raggii hogaaminayay hadday tahay dacwo iyo dad diin loo sheegayo dhallinyaray ahaayeen raggaasi magaalooyinka dhan furtay ee madiino oo dhan ninka furtay ninkaa dhallinyaradaabuu ahaa hadday tahay cilmi barasho iyo aqoon raggaasi looga dambeeyey zayd ibnu thaabit waa ninkaasi lagu aaminay inuu min kutaabi ilwaxyi noqdo nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyigii ku soo degayey inuu ragga qoro ka mid ahaado waa ninkaasi ay saxaabadii waaweynayd u doorteen inuu noqdo ninka qur-aanka soo ururiya cumar iyo ay abibakar u doorteen waa ninkaa mar kale haddana saddexaad uu cuhmaan ibnu cafaan u doortay inuu noqdo maxay hogaamiyo guddigii la yidhi nusakhii kutubta ha u qoraan maxay magaalooyinka 7 kitaabe ama 6 kitaaba uu qoray cuhmaan ibnu cafaan ninkii qorayay buu ahaa idan waa ninkaasi uu nebigu ku tilmaamaya afradukum cilmu lfaraa'id waxa idinku aqoon badani waa zayd ibnu thaabit zaydna wiil yaroo 12 jir u ahaan jiray waa mucaad ibnu jabal waa wiilkaa yar buu ahaa
ابن مسعود لها إن معاذا كان أمة قانتا لله إنما كنا نشبهه وحوت المام معاذ بن جبل بولا أمة بوسكاها كلجي وإلهي سبحانه وتعالى أخضع سن وحنو كشبه جرني بولي إبراهيم بو كمان ورن جرني بولي نبي الله إبراهيم وحيا هاين دلنيرو كواسي جهاتما يقوبها الدقال وحكا قفلا يادي لي فرعون هذه الأمة ومضة نبي كوكوت المامي فرعون كيدي نبي موسى وقت يسي فرعون بان ولا نبي صلوات الله وسلامه عليه مدو مديسي كمده أيها امتحان نمدي الشيطان نمدي سمركي لغي يابي لغت المامين ويهي فرعون هذه الأمة أبي جهل نبي صلوات الله وسلامه عليه مدو مديسي كمده أيها امتحان نمدي الشيطان نمدي سمركي لغي يابي لغت المامين ويهي فرعون هذه الأمة أبي جهل أبي جهل عبد الرحمن بن عوف محولها ويل يربع دين عيقي سيسوتا أجي بيوري مركز سوحي يقول بيوري يا عمي أبي جهل واكيه وروايات صحيحة أبي جهل من رادينك أبي جهل إلى وويل يرى أنصاره ومدينة كل شيء ودوري تبشرسكا ومكابا أرق أبي جهل كل شيء أنا وركيسون مغلين كان النبي عاي شري ما شري مسلمين تنفط يسوق كانوا مغلي لكن بدايتي سبق قرن مايو وحسي كل درسين أنا أبي جهل ما أنت نولانين نقدر عيد ما ضوطه إنه يسوق سكوب بيعه تهتنا وحولي يا عمي أبي جهل مي أنا قال لي يا بنبولة كيسو آشيسي أيادنك كلنا متكليسك كيسو تاجي بولي markaasuu isna ila qarsaday buu leeyahay waxay rabaan xataa inuu keligii mid waliba loo sheego isagu keligii ninka soo dilo kii kala dhinaciga kala istaagay wuxuu igu yiri ammi abi jahl me war maxaa ku falaysaa ma ku yiri waxay dhahdaan waxaanu maqalnay inuu ilaahay nabigiisa caay jiray oo nabigu ka badbaadi waayay waxaan isku dayayaa markaas buu leeyahay maanta inaanu sinaba u baxsanin abi jahl sida geedka u muuqda buu leeyahay baaxadiis iyo weynidiisu oo ay ciidamo hareero tuban yihiin oo ay ku wareegsan yihiin ay halkaa ka soo baxay buu yidhi labadan wiilla dhinacyadayda kuma aaminaya buu leeyahay waxaan leeyahay buu yidhi ma rag waaweyne hareeraha kaa xigaan yacni xataa meelahay ka xigaan ayaanu ka aamin qabin in weerarku uu ka soo galo inuu dee abujahl u diro ma daaye haddana markuu arkay nimankani say musiriin ugu yihiin abujahlka intan leeg inay ka takhallusaan ayuu wuxuu yidhi waa kaa ninkaan raadinayseen labadiiba waa duuleen waa ku yaaceen abi jahl ciidankii watiye wixii oo dhan inta la jeexaa seefta lagu boobay dhulkaa loogu tuuray dabeetana nebigaa mid waliba u yimi isagoo le ilaahay rasuulkiisa iyo abi jahl baa soo dilay anaa dilay iyo anaa dilay iyadoo la isku hayo wuxuu ku yidhi seefihina miyaa maydheen may bay yidhaahdeen miyaa masaxdeen may keena buu yidhi seefihina seefahoodii buu aagay dabeetana wuxuu yidhi kilaakumaa qatala labadiinuba waa disheen buu nebigu ku yidhi labadiinuba seefihiinii waa ku dhaceen oo abi jahl labadiinuba waa dishay ibnu afraan mucaad ibnu camr ibnu ljamuux iyo mucaad ibnu alxaarit waa laba wiil oo yaryar oo ansaar oo dhallinyaro ah oo aan arag ayaa abi jahlka intaan le ka takhallusayay bal ee maanta caalamulislaami dhul waaweyn oo la yaqaano sind iyo indiya sind waa gobolka sare ee bakistan iyo indiya inteeda sare oo dhan ama qaybteeda badan waxaa furtay maxamed ibnu alqaasim ninkay culamada taarikh ku tilmaamaan maxamed ibnu alqaasim wiil 17 jir u ahaa ninka ciidamada hogaaminaya dhulkaas maanta muslimku degan yahay furtay ee islaam ku soo daray wuxuu ahaa maxamed ibnu alqaasim xilana waxay ahaayeen dadka kani ummad wax u nool rabta inay xaqiijiso salaf il-ummana noocaas bay ahaan jireen imaamu shaafici markuu yimi imaamu maalik ee muwaطa uu ka qaadanayay 13 jir buu ahaa isagoo ka yimi markaa reer maka sufyaaneenka iyo cilmigoodii isagoo reer maka soo dhameeyey ayuu madiine u yimi si uu imaamu maalik muwaطa uga xambaaro dhowr iyo 10 jir buu mufti ku ahaa uu fatwoonayay a'imadu noocaasay wada ahaayeen imaam albukhaari waxaa la tilmaamaa wuxuu leeyahay 18 jir baan ahaa buu leeyahay markaan qadaaya saxaaba wax ka qori jiray 18 jir baan ahaa markuu maxay qadaaya saxaaba wax ka tasniifinayay
dadkii muslimiintii hore waxay ahayn dad wax u nool. qof cimrigu waa intaan aynu nool lahay inta ugu macaanina waa da'dan aan joogno. inta ugu macaani waa da'da dhallinyaranimo ee wada joogtaan hadda. waa da'daasi dhowr iyo 10 jirka iyo 20 jirka iyo 30 jirka leh. waa da' qofku wuxuu rabo uu xaqiijin karo. waa da' qofku wakhtigiisa oo dhan uu leeyahay. waa da' qofku uu caafimaad qabo. waa da' qofku uu koritaan ku jiro jidh ahaan caqli ahaan. da' markuu gaadho qofku xagga kale u socda wax waliba way sii dhinmayaan laakiin marka kan wax waliba way u ziyaadayaan. laakiin waxay ku xidhan tahay qofku hamiga uu xambaarsan yahay inta uu yahay iyo waxa uu rabo inuu bedelo. waxay leenahay taariikhdii muslimiintii hore ciddii wax bedeshay ee nolosha tan gediday dhallinyaray ahaayeen. saxaabadaas taabiciinta salafkaasi dhallinyaray ahaayeen. hadday cilmi tahay iyo fatwo iyo aqoon la barto, hadday jihaad tahay, hadday xataa maamul iyo hogaamintay. usaamata bnu zayd kuu nebigu jeclaa ee aabbihiina uu jeclaa 18 jir buu ahaa markuu hogaaminayay ciidamada mu'ta. markii uu ciidanka u dhiibay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh 18 sano ayuu jiray. 18 jir nin ah ayaa wuxuu hogaaminayaa ciidan loogu talagalay inuu waajaho maxay kristankii oo dhan. ciidan dhowr boqol oo kun ah ayaa loogu talagalay inuu waajaho isagoo wiil 18 jir ah. idan qaadatul-juyuush ayay ahaayeen. macaarigta rag bay ku ahaayeen. cilmiga rag bay ku ahaayeen. wax kasta oo nolosha ah waxay rumaysanaayeen inay bedeli karayaan. faraqa inoo dhexeeya muxuu yahay? waxa inoo dhexeeya koowaad wuxuu yahay waxay ahaayeen iyagu kow dad iimaan qalbigooda galay mabda'na u nool rumaysanna cimrigu inuu yar yahay ee intan yar inuu ka faa'iideeyo. maximum inuu uga faa'iideeyo intan yar waa wax yar. waa saacado cimrigu haddii la tiriyo waxaad nooshay oo dhamme. laakiin saacadahaas buu rabay inuu nolosha gediyo oo wax badan ka sameeyo. dhallinyaranimadu mushkilaad bay leedahay haddii laga faa'iideyn waayo. mushkiladeeda koowaad waxaa ka mid ah alfiraaq. wakhtigii inuu adigaba cudur kugu noqdo. qofku hadduu hadaf la'aan noolaado wakhtiga laftiisa bukaanba ku noqda. haddaba cimrigiiba aynu leenahay waxaad haysataaba isagu ahaa. haddaad waxaad ku bixisay u garan weydo isagunba inta caajis kugu dilaad sodhan doontaa xaggaad wakhtiga ku lumisaa. maxaad ku bixisaa? isagii inaad bixisaa dhib kugu ah. waayo insaanka ilaahay uguma talagelin inuu meel fadhiyo. laguma talagelin inaad hurdo seexato soo toosto caynka ahaato. haddaad markaa hadafkaad u noolayd garan weydo wuxuu noqonayaa wakhtigaaga laftiisiibaa wuxuu noqonayaa dhib. dabeetana waxaad raadinaysaa waxaad ku lumayso. mid laadhuu cayaara, mid turub cayaara, mid dubnada cayaara. muxuu cayaaraya? wogi inaan waxba ka soo baxaynin. wuxuu cayaarayaa wakhtigan baaba balaayo ku ah. wakhtiga laftigiisii ayuu rabaa inuu isdhaafiyo. mid qayila, mid kan sameeya. jas cimrigiisii qayb ka mida, hantidiisii qayb ka miduu rabaa inuu tuuro. hantidiisii qayb ka mida ayuu rabaa inuu tuuro oo isilowsiiyo. aynu leenahay waa wixii ugu qaalisanaya uu sito. firaaqu waxa keena markaa waxa weeyaan waa cadam almas-uuliya. firaaq haddaad aragto qof uu hayo waa qof dareemi waaye ama garan waaye mas-uuliyaadka saaran. waayo mar kasta waajibaadku awsac min alwaqt. mar kasta waajibaadka iyo shaqada iyo waxa lagaa rabaa haddaad tidhaahdo kuqun iyagaa ka badan wakhtiga. laakiin markaad taa garan weydo iyo mas-uuliyadku saaranba haddii lagu yidhaha underage baa tiyo dhallinyara idinku tiina iska cayaara. haddii qaabka lagu tarbiyeynaya uu yahay carruur baa tiina waxba ma ogidin. hadday qaabka aad u noolaata uu noocaa yahay idan wakhtigii waxaad ku qabataba ma haysid. wakhtigii waxaad ku qabataba ma haysid. mu'minka saadiqii markaasi ma yaqaano firaaq. ilahayna wuxuu leeyay faidaa faragta fansab. dada axwaalu dunyaha iyo intan ka soo faaruqdo cibaadada iyo kan ku daal baa la yidhi. habeenkii istaag ilaahay isu taag daal. waayo dunidan intaad joogtay inaad daashaabaa lagugu talagalay. dunida ninkii yidhaahda waa raaxaysanaya wuu riyoonaya. nin raaxaystoo dunida jooga lama hayo. raaxadu waa raaxat alqalb. waa qofku inuu niyadsan yihi. raaxadu waa qofku inaanu warwar qabin.
raaxadu waa qofku inaanu baqa qabin yani waa dareen qalbi raaxadu iyo maaha mid jidheed ama mid nolosha kale raaxa kuma jirto waayo ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqi inaka kaadix baa lagu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad beer xanuun baanu ku dhex abuuraa la yidhi mid daalaya baa tahay baa ilaahay yidhi xagga alle u daal nolosha tani male baa jaanis la yidhaahdo waan raaxaysanaya raaxadu waa inaad qalbiyan inaad deganti raaxadu waxa weeye maanta haddaad cadceeddaa ka shaqaynayso cadceeddaa haddii lagu yidhaahdo shaqo 12 duhurnimo 11 barqeed bilaabmaysaa jirta ilaa 3 galabnimo soconaysa oo halka ugu kulul laga shaqaynayo laakiin lagu yidhahdo maalintiiba $100 baa la qaadanayaa ma la shaqaynaya baad u malaynaysa ha waa la shaqaynaya ma adigoo caajisaysan oo le wallaahi cadceedday gubaysaad shaqaynaysa mise adigoo sile wallahi 100 kana shaqee horta 3,000 bay bishii noqonaysaa yani satisfied baad ku tahay shaqada waad ku raalli tahay waayo waxaad isku qancisay inuu kaa soo gelayo maxay dhaqaalo fiican kan marka qalbiyan waa degantay mushkilad cadceedan iyo siigadan iyo boodhkan iyo waxaan oo dhammi kuguma hayaan mar haddii aad helayso maxay hadafkaad cadceedan u gashay mar haddaad helayso idan qofka mu'minka ahi nolosha tan wuu ku talagalaa kadxigeeda daal iyo dil iyo dhac iyo boob iyo mushkilad waa iskaga talagalaa laakiin wuxuu ogyahay in janno la helayo wuxuu og yahay in insaan aad noqonayso insaannimadii lagugu talagalay saa daraaddeed shaytaanku wuxuu ka faa'iidaystaa waqtiga firaaqa ah haddaad dheregto oo seexato oo soo toosto oo dheregto oo seexato oo soo toosto macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad baad dareemi weyde in waxbaba ku saaran yihiin baanad rumaysanayn dhallinyaronimadu dhibaatooyinka kale ay leedahay waxaa ka mid ah الشبهات والشهوات مجتمع دمي waa wada leeyahay insaan ba hadii leeyahay laakiin dhalinyaranimada waa ku sii badantay ninka dhalinyaranada waa aqlaani inta badan aqliyan in la qanciyaabo isku talagala laakiin hadduu aqoon fiican baran waayo oo diintiisa si rasmi ah u baran waayo sheeka baralayda gaalada iyo dadka kale shayaatiintu waxa ay sheegayaan wax badan bay yeeshaa maantana aqoonta la yidhaahdo in qofka bini aadamka la gaalaysiiyo waa takhasusaad jaamacada looga baxo waa takhasusaad qofka in la lumiyo rag baa ku takhasusay mabaadi'doodaasi inay kaa dhaadhiciyaan inuu sharxo kaa dhaadhiciyo iyada wanaag kuu tusiyo waana mabda ibliisiya ibliis muxuu aadam ka dhaadhiciyey yaa garanaya geedkii ilaahay yidhaha isku cunin ayuu isagu falsafadeeyo si kale u sharxay صحيح ما هي وآدم وجيت كها عنين بإلهي يدي إبليس نوح يدي وحن كتوسينيا جيت هدي لا عنه لوارا يبان لا دمانين جيت هدي لا عنه ملك لا يبلى لهليه شجرة الخلد وملك لا يبلى بوشع فلسفة ثانية بو شرحي سيء قد دعيه إنه إلهي أركيس عاصيه مركو عنين ما لوارا ما له هلا وحي ماي يعني هو فلسفة ذا إبليس من بني آدم xumaha wanaag loogu sheego wanaagana xuma looga dhaadhiciyo laakiin insaanku haddii aanu isku dayin yani diintiisa inuu si fiican u barto oo si wanaagsan oo cala alaqal usuushiisa caqiidadu inay rasmi noqoto berita shayaatiinu linsigu markay ku helaan darwinism ay ku dhigaan runun baabad moodi darwinism theory inuu run yahay baad u qaadan waxa badan la isku akhrinayo dimuqraadiyad leekan la sheegayo xuquuqul bini aadam leh haween korsoqaad leh waxa la sheegayo tirada badan leh runun baad moodi idan dhalinyaradu lumitaanku wuu u fududiyey waayo tajaarib badan ma leh ninka weyne waxa laga yaabaa haddaanu cilmi badan lahayn inuu tajribo badan leeyahay waayo aragnimo badan inuu leeyahay goob badan oo la soo jabay inuu taagnaa waxaan badan ee la isugu sheekeynayo dhan dhul lagu sameeyo xagga kale u rogmay inuu soo arkay tajriba inay anfacday laakiin ninka dhalinyaradii wuxuu u badan yahay inaanu tajribo badan isagu soo helin haddii markaa uu taa bedelkeedii qaadan waayo inuu aqoon fiican barto si uu isu ilaaliyo wuxuu khatar u yahay inuu lumo ninka dhalinyarada ahi wuxuu kaloo khatar u yahay shahwaati nafsiga waayo waa uu koraya jirkiisa oo dhan wuu isbedelaya uu koraya
ninka dhalinyarada ahi dumar wuu uga baahi badan yahay ninka weyn, wuu uga hunguri badan yahay waxyaabo badan oo kale. saa daraaddeed wuxuu u baahan yahay inuu helo iimaan iyo cibaado uu isku dejiyo, iyo haddii uu guur suurtagal yahayna inuu guursado. walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwii carshuraxmaan hadhsanaya maalinta qiyaamaha, maalinta cadceeddu soo dhowdahay, maalinta qof waliba dhididaya dembigiisu intuu leekaa, maalinta meel la hadhsadoo kale aanay jirin ee dadku naftu wada haysato, carshuraxmaan kuwa hadhsanaya wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu ka mid yahay maxay? imaamun caadil, imaam cadaalad sameeyey, nin ummadda dhan hogaamiyey oo ummaddaa dhan u cadaalad sameeyey. waa mansilo aada u weyn. axaadiistaasi sabcada sheegayso oo dhan laba tartiibkooda way isku waafaqsan yihin bikulli riwaayaatihim baa la ydhahaa. inta kale laakiin riwaayadku way soo kala horaysiiyaan. imaamu caadilka iyo shabaabka waa la isku waafaqsan yihin. wa shaabun nasha'a fii cibaadat illah, xadiiskii saxiixaynka iyo riwaayaadka kale uu ku soo arooro o dhan ku dar, labadaas waa la isku wada waafaqsan yihin. imaamka intaa leeg ee ummad dhan hogaamiya, khaliifatulmuslimiin oo kala noqday, ee cadaalad sameeyey, ee waxaasoo imtixaana ka guulaystay, waxa la raaciyo kullamaan oo aan ka hadhin shaabun nasha'a fii cibaadat illah, nin dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray. yacni nin dhallinyaro ah oo nafta xakameeyey oo cibaadaystaa la tilmaamaya. waayo nafta waa imtixaan, weliba markay dhallinyarada tahay waa mushkilad badanta. maadaama ay mushkiladda tan leedahay waa in wax lagu shuqliya la helaa. shaytaanku ama isagaa ku shuqlin, naftan isagaa mashquulin, ama adigaa mashquulinoo wax kale ku mashquulin. wiilka dhallinyareed markaa ee isku dayay inuu cibaadaysto, ee naftiisa ka xakameeyey shaytaan iyo ibliis iyo jidkiisii, waxa uu ku tilmaamayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ka mid yahay toddobadaasi maalinta qiyaame hadhsanaya carshuraxmaan. waxaan leenahay dhallinyaronimadu aafooyinkaa ay leedahay ee shubahaadkaasi ugu horeeyaan, oo waxa lagu badbaadiyaa uu yahay kow inaad ilaahay magan gasho, laba inaad cilmi naafica baratid oo ku anfacaya, shahwaadkaasi oo ah qofku inuu cifo barto iyo dhowrsooni. waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih. ha dhowrsanaadaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa aan helin waxay ku guursadaan ilaa ya alle subxaana wa tacala uu ka qani yeelayo. uu nabigu tilmaamayo ya macshar shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj. war dhallinyaroy ninkii guursan karaa ha guursado, ninka kalowna soon buu nebigu ku yidhi. soonku waa cibaado shahwaatu nafsiga wax badan ka tarta. dhallinyaronimo waata keentay nin dhallinyaro intuu nebiga u yimi, imaamu axmed xadiidkiisii muxuu ku yidhi? ilaahay rasuulkiisiiyo ata'dan lii fi zina buu ku yidhi intuu nebiga u yimi. anugu ma adkaysan karaya ilaahay rasuulkiisiiyo dumarka iga ogolow. in la fasaxuu doonayay oo loo fasaxo inuu zinaysto. cidda uu fasaxa weydiisanayaana waa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh. nebigu wuxuu ku yidhi markaa warkaa leh, hooyadaa ma la jeceshay buu ku yidhi. zino hooyadaa miyaad la jeceshay? may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. habaryartaa ma la jeceshay buu ku yidhi. may buu yidhi. eedadaa ma la jeceshay? may. walaashaa ma la jeceshay? yani nebigu wuxuu tilmaamay qaraabadii isaga ku xeerayd iyo caarkiisii, dumarkii uu jeclaa inay wanaagsanaadaan. ninna ma jecla walaashii, inantiisa, hooyadii, eedadii, habaryartii inay xumaato. ninna ma jecla in la yidhaahdo eedadaabaa cidi ka sinaysatay ama walaashaabaa cidi ka sinaysatay, ama qofna ma jecla. wuxuu yidhi sidaas bay kuwa kalena raggun u yihin, eedde iyo habaryar iyo hooyo. yani gabadhaan cid eedde iyo habaryar iyo hooyo wahayn oo dee gabadh cidla laga keenay ma jirto. sida aanad adgu eedada iyo hooyada iyo habaryartaa zina ugu ogolayn ayaan wakadalika annaas buu ku yidhi, dadka kalena saas baanay ugu ogolayn.
eedooyinkoodii habaryarkoodii in laga sinaysto dadka kalena saas baanay u ogoleen deetana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gacanta intuu halka saaray ayuu u duceeyey ninkii shaabkaasi buu iskaga daayay yacni shabaabnimadu way leedahay dhiiranidaa xataa inuu nebiga weydiiyo in zina loo fasaxo laakiin waxay u baahan tahay inuu dhanka dhallinyaradii isku dayo inuu naftan xakameeyo walidalik buu xadiidka kale uu sheekh alalbani isnaadkiisa uu ku tilmaamayo inuu fiican yahay saxiixada ku soo aroray wuxuu nebigu yidhi ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah ilaahay wuxuu la cajabaa ninka dhallinyarada ee aan sabwaba lahayn sabwada culammadu waxay dhahdaan waa maylun ila alhawa ninka dhallinyaro ee nafta ka adkaaday aan xagga iyo hawadiisu ka haysanin ilaahay waa la cajabaa ninkaasi siduu u qiimo badan yahay idan isku day inaad noqoto ka alla la cajabo isku day inaad noqoto ka carshuraxmaan harsanaya isku day inaad noqoto kii islaamka korin kari lahaa waxaan tilmaamaya koowaad markaa wuxuu yahay kow cimrigan waa raasumaalkeennii dabeetana waa inaynu hadaf ka yeelannaa nolosheennu waa inay qasdi leedahay aan u noollay waxaad u iskuulka u barataa inaad shaqaysato wax jaamacadda ugu jirtaa inaad waxaa qabsato idan 5 sano 6 sano 10 sano 12 sano waxaad u sii jeedaa xoogaa aqoon aad ku xoogsi tagta inaad hesho laakiin waa in cimrigeennoo dhami hadaf leeyahy war nolosha in yar baad joogaynaa 60 sano 70 sano haddaan lagaba soo yaraynin intaa maxaan ku qabtaa maxaan xaqiijiyaa waa inaad isweydiisaa intaa maxaan qabtaa ثانيا waa inaad ku xisaabtantaa imika inaad joogto cimriga halkii ugu fiicnayd qofka bini aadamka had iyo goor waxbaa kaa maqan buu isleeyahy waar habeen idinkama tegin waa intana hadda haysaan nolosha gebigeeduba noloshu waa inaad waqti haysato caafimaad qabtid wax qabsan kartid intiina waad haysataa wax ka dambeeyo kaloo la raadceeyaa ma jiro daad caafimaad qabto waqtigana aad helayso xooggaagana aad leedahay idan waa noloshuba waa intan chance intan ka wanaagsan waxa laga yaabaa qofku inuu isleeyahay mar dambaad waxaa heli doonta ama mar damba waxaa soo bixi doona mar damba oo hadhay ma jirto waa mar la sii liidanayo marku waa marka kan haddadan la jooga ayaa markii lagu fakerayay markuu ninka gabayaagi lahaa layta shabaab yacuudu yawman waa markan idan waxaan idin leeyahay war taariikhda dadkii bedelay dhallinyaray ahaayeen taariikhdii hore dadka bedelay dhallinyaray ahaayeen maantana kuwa bedeli kara waa dhallinyaro wuxuunbaa u baahantiin inaydan gam-ino is odhan idinku dhallinyaratin oo mas-uuliyadda idinma saara weli waad yar tahay oo cid kala mas-uuliyaddu saarantahay ee inuu qofku dareemo mas-uuliyadda inay diintiisa ka saarantahay noloshiisa inay ka saarantahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummaddiisa inay ka saarantahay inaad dareento markaasi inaad wax tarto inaad dareento inaad adigu wax kororsato oo wax baratid inaad dareento inaan wakhtigu kaa dayacmin inaad dareento oo u fahamtid da'daadun inay ahaayeen kuwii nolosha dabagediyey ee dunida dhanka kale u dhigay da'daadanun inay ahaayeen kuwii nolosha dhanka kale u dhigay walidaalik waxaan ku soo koobayaa markaa ummadda hadday dhallinyaradu ka xumaato ay dhallinyaro weydo waa ummad dhimatay waddankanna waxaan arkayaa jiilka soo koraya inuu usii jeedo qaad iyo in la nooca waayo intii duqayda ahayd baa waalatay waa waalin nin weynoo qaad cunaya waa nin weynoo darag cabaya weliba laysku raacsiisan yahay dunida kale daragga dad baa cabba laakiin waa tabaqa liidatoo la yaqaano dee berigii hore soomaaliya waxaa jiri jiray koox yaroo la odhan jiray waa alkoolistayaalo waxay fadhihi jireen dooxa iyo meelaha waa tabaqa yaroo liidato dee dadka ka liito oo qofna aanu ku dayasho u qabin bay ahayd laakiin hadday bulshaduba noqoto alkoolistayaal bulshada inta qaadka cuntaa waa alkoolisti ama madax ha sheegto ama shariif ha sheegto ama sheekh ha sheegto wuxuu doona ha sheegto waa daragiste waa darag rasmiya qaadku bulshada maanta noolina ammaan baabay u qaadatay yacni qofku inuu cuno waxa ka horaysa inuu xumo u arko shaygu inuu xun yahay ayaa ka horaysa in mujtamacu arko laakiin inuu noqdoba
odayada maanta haddii la yidhahdo ha la shiro oo waxa la isweydiiyo fadhi baynu u baahanay baa la leeyahay madaxdu hadday tidhaahdaa fadhay u baahantay iyaduna ummadoo dhammi fadhay u baahantay fadhiga la sheegaya waa in garaaba la ruugo waa in qaad la cuno yani waa ummad waalan marka nin qaad cunaya waa nin waalan nin waxba keeni karaya maaha da'dii yaraydna waxaad mooddaa inay hiigsanayaan da'daasi nolosha ka dhacday war da'daasi waa drop out iyo tusaale idiin noqonin da'daasi waa drop out rasmiya drop outku waa dadka aan la tirsanin ee tirada ku jirin nin drag caadi ka dhigtay inuu cunaa tiro kuma jiro ummad uguma jiro reer uguma jiro qabiil uguma jiro dawlad uguma jiro cidnaba wax kama taro da'dan yara soo socotaana waxaad mooddaa in indhahoodii uu kaaye dee ama aabbaa qayala ama adeeraa qayala ama wixiiba waa qayalaan reerka wixii joogaba de way cunaan isna wuxuu u socdaa markaa dee kama fogaanayo waxaan idin leeyahay waxa weeyaan inaynu bedello jiilkaas baynu u baahanay inaynu jiilkaa bedello inaynu u diyaar garownaa baynu u baahanay oo ku bedello jiil wax baranayo aqoon leh dhaqan leh akhlaaq leh wakhtigiisa ka faa'iidaynaya waalidkii ixtiraamaya ummaddiisa ixtiraamaya dadka wax u qabanaya jiil iijaabiya positive dad ah jiil aan negative ahayn jiil aanu tusaale kuwani u noqonin ee tusaale u noqdo nebi maxamed iyo saxaabadiisii qofka bini aadamkii tusaale kama maarmo iyo cid uu ku daydo way fiicnaan lahayd tusaalahaagu waxaad arkaysa inuu noqdo saxaabadu way naga tusaale fiicnayd waayo nebi maxamed bay arkayeen oo dhaqmayo oo nool oo soconayo oo cibaadaysanayo hadlayo warramayo idan way naga tusaale wanaagsanaayeen laakiin in sha allahu inaguna tiisiyo qoran baynu haynaa iyo tii alla keenay oo qoran inaynu iyada tusaalaheenna ka dhex raadino aynan tusaale ka dhiganin intan derbiga fadhida inaynu isku dayno ummaddan inaynu badbaadin karno jiilka badbaadin karana waa da'yartiinaa un da'yartiinaasi haddaa khilaaftaan waddadii kuwa hore socdeen ummaddan mustaqbal bay leedahay haddiise da'yartu ay raacdo ummaddan hore halkay u socoto waddankan geedna ku hadhi maayo neef xoolina ku hadhi maayo dadna ku hadhi maayo waxba qaad baa lagu cunaya waxay noqonaysaa uun ma maqasheen opium war wax la odhan jiray waxaa jira dagaalkii xashiishadda dagaal la odhan jiray opium war waa fiyuun waa jayna baa laba dawladood oo waaweyn oo dunida ka midii beri dagaal ku qaadeen inay sakhraamiyeen daraaddeed jayna dad xooggan oo xoogsanaya noqday dhaqaalihiisaa kor u kacay dadnimadiisi baa kor u kacday wuu xoogsaday shaaha madoowa dunidao dhan jaynaa lahaan jiray isagaa iibin jiray ingiriiskaas buu shaah ka iibiyo wuxuu lacag haystayba uu ka soo qaada ingiriiskii wuu fikero waxay dhaha war jayna maxaynu ka yaallaa shaah iyo xariir iyo weelkan dhoobadaa buu gadi jiray waxay dhahen jayna si kaloo lacagta lagaga keenayaa ma jire darag ba iminka dadkii bilaabeen inay afiyunka cabbaan aan kaa ku badinno kambaniya indiya la geeyey beero daragga markay beereenna waa la raray dabeetana waxaa la geeyey meesha china cabatay oo tidhi hana laga daayo boqortooyada ingiriis bay waashta ka tageen waxay dhahay hana laga daayo waxana lagu hayo dadkii wada waalay cidiba waddankii ma sideenna unbay dee derbiga wada fadhiyeen dadkii waalay ha laga daayay bay yidhaahdeen waxay boqortooyada ingiriis tidhi kama maarano dhaqaale naga soo gelaya kama maarano jani wuxuu isku dayay inuu xoog ku xidho waddankiisa xooggiina waa la weeraray faransiis iyo ingiriis baa weeraray laba dagaaloo midna dhacay 1839 ilaa 42 socday midna 1856 ilaa 60 socday baa lagu qaaday jayna qasab baa lagu sakhraamiyey wuxuu aanti lahaana waa la qaatay soomaaliya maanta qasab baa lagu sakhraaminayo somaliland iyo waxaan oo dhan waa loo beeray beerihii bunka waxa lagu bedelay qaad meel walba qaad baa lagu bedelay weliba DDT iyo balaayaa lagu waraabiyaa almost dadkani hadduu saan usii socdo wuu xaaqmaya taa muran kama taagna wuu madhanaya idan waxaan idin leeyahay da'yartiina kan iyadoo da'yarta muslimiinta ay qadiyad weyni u taallo idinka waxaan kaloo idin sii sheegaya tan qaatuna idinka idiin taalla da'yarto inaanay iyana baabi'in kuwii horaa baaba'aye taasina idinka idin sugaysaa waxaan idin leeyahay marka dareema mas-uuliyaadka idin sugaya inta ay leegiin iyo waxa laydinka baahan yahay inaad qabataan wakhtigiinana ka faa'iidaysta iyo idinka dayacmin ogsoonaadana nolosha intii u fiicnayd maanta haysataane intaasi maanta hadday kaa lunto sidaad u soo celisaa way adagtay wallahu aclam billahi tawfiiq su-aashani waa su-aal mawduuca ka yara fog laakiin malaa in badanna dee wax iska nidhiri dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyaddu
dimuqraadiyadda waxaa iska wada garanaysaa baan u malaynayaa waa qaab nololeed ka mid a qaab nololeedada bini aadamku u dhaqmaayo maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisu uu yahay wax la yidhaahdo sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahdo xaq iyo baatil ma jiro waxaa jira wax la yidhahdo majority iyo minority yani waxa laga yaaba idinka in laydiin baray dadku xorriyatu ra'yi baa laysa siinaya xorriyatu kadaa baa laysa siinaya waa jirtaa laakiin annaan bal wejigeeda labaad sharxo wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakiin waxaa jira majority wuxuu xaq weeyaan kuma mancismo wuxuu ku mancismayaa 51 leh مثلا ragga fuula hadday boqolkiiba 50 cod helaan iyaga xaq leh saacka ma dimuqraadiyadda waa sidaa wada dimuqraadiyadda macnaheedu waxa weeyaan Yurub waxay isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday culture way isku waafaqay wax kasta oo dhan kale way isku waafaqay waxay isku waafaqeen in wax kale oo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la train gareynayo yar iskuulka dhigta inaga waxa laga yaabaa macalinku hadduu ku yidhaha waxa soo maxayna tilaabo macalin waa sidaa iyo sidaa way waxa lagu train gareeyay inaad xaq iyo baadil ka rumaysanto inaad sax iyo qalad ka rumaysanto ardayga yar Yurub class-ka fadhiya marka uu su'aasha la weydiiyo wuxuu yidhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa way xaq uma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaq u leeyahay ma jirto wuxuu waa sidaa iyo sidaa waa inaad tidhaha waxaan u malaynayaa waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inay caynkaatay idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihiin furas isleeg ayay leeyihiin oo aad wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhaahdaan xaggaan xuquuqi jiraan sawtan dastuurada iyo ay jiraan qaanuunka iyo waxa oo soo gabigiisaba lama bedeli karo dastuurka haddaad boqolkiiba 70 baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo doorto